bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad daafaha dunida ka joogtaan kusoo dhawaada warka TV-ga SBS xarunta Muqdisho waxaa idin waramaysa anigoo ah Nimco Cabdisalaan Maxamed qodobadood warka ku daawan doontaan hadduu Rabbi idmana waxaa ka mid noqon doona kulan looga hadlayo maqaamka caasimadda Muqdisho oo maanta Muqdisho ka furmay wasaaradda gaashaandhigga dalka ayaa waxa ay xustay maalinta ka hortagga askareenta oo loo asteeyay 12 Abriil furitaanka shirweynaha sanadlaha ee garsoorka oo maanta Muqdisho ka furmay qodobada dibadda aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona cudurkii ka dilaacay China ee fayraska ahaa oo hay'adaha caafimaadka ay ka bedeleen magacii coronavirus qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba isagoo intii hore ka faahfaahsan waxaan markale daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo intii hore ka faahfaahsan kulanka looga hadlayo maqaamka caasimadda Muqdisho oo maanta Muqdisho ka furmay waxa warkan inoo faahfaahinaya wariyaheena Aadan Macalin Aadaamo wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa qabatay kulan wax la isaga weydiinayo maqaamka Muqdisho iyo waxa uu ka leeyahay dastuurka kulankan isaga ah waxa ka qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir oo uu horkacayo gudoomiyaha xildhibaano wasiiro iyo xubno ka socday beesha caalamka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo ku hadlaya magaca bulshada Muqdisho ayaa yiri inaan idin kala soo qayb galo subaxdan shirkan waxaan halkan idinku soo gudbinayaa aragtida ku aadan statuska ama maqaamka caasimadda Muqdisho iyo gobolka Banaadir wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sharaxay muhiimadda ay leedahay Muqdisho oo maqaam yeelata wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa sharaxaad ka bixiyay iswaafajinta dib u eegista dastuurka qabya qoraalka ah iyo waliba maqaamka magaalada Muqdisho dhamaystirka dastuurka waxa ka mid ah ugu mudnaa bulshooyinka ballaaran ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya in maqaamkeeda si hubanti ah hal mar meel la isla dhigo dadkaasi waa dad ku nool duruufo adag oo amni darro iyadoo sidaa tahay bay haddana dawladii martigeliyaan inta badan wadadii baa laga xidhayaa amni darra dhacaysa culaysyo u gaara ayay ku noolyihiin marka waajibna saaran weeye in su-aasha jawaabteedu ay soo dhawaato si loo helo marka autonomy maamulka uu helo wuxuu helayaa administrative autonomy xag maamul xag dhaqaale iyo xag xuquuqeed taas waxay wanaajinaysaa oo kobcinaysaa dawlad wanaagga marka xulashooyinka kala duwan ee suurtageli kara waxay noo soo bandhigi doonaa howlwadeennada wasaaradda arrimaha gudaha oo inala wadaagaya hababka ugu habboon ee adduun weynuhu uu u maareeyay maqaamka caasimadahooda iyo xaaladaha inagu geedaan sidii loo eegi lahaa abwaanka weyn ee Soomaaliyeed ee la yiraahdo Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi ayaa toddobaadmeeyay u gabiyay magaaladan wasaaradda gaashaandhigga dalka ayaa xustay maalinta ka hortagga askareenta carruurta ah oo loo asteeyay 12 Abriil wariyaheena Cabdishakuur Shaasha ayaa warkan inoo faahfaahinaya waxaa ubad loo korshaa in badan loogu daalayaa astaamaha qaranka iyo af iyo dhaqan loo baraa inay anfacaan dalko abaalkii loo galayna dib ay ka oofiyaan waa qayb ka mid ah erayada hees looga hadlayay habraaca abaabinta carruurta
iyo ka ilaalinta askaraynta. maantana waa 12 February waana maalin weynaha caalamiga ah ee ka hortagga askaraynta carruurta. howlkanina waa kii wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo uu ka dhacayo xuska maalintan iyada ah. martida munaasabadan agaasinkeeda ay leedahay wasaaradda gaashaandhigga waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, taliyaha ciidamada xoogga dalka, taliyaha ciidamada dhulka, agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga, saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga, ururada bulshada rayidka iyo mas'uuliyiin matalayay hay'adaha caalamiga ee ka howlgala Soomaaliya. waxaan ballanqaad ah wasaaradda gaashaandhig ahaan iyo taliskeenaba in aan agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Marwajahan Cabdullaahi Xasan ayaa ballan qaaday in wasaaradda gaashaandhigga ay dib ugu soo celin doonto waalidiinta Soomaaliyeed carruur la sheegay inay askareeyeen shabaab iyo Daacish. waxaan ballanqaad ah wasaaradda gaashaandhig ahaan iyo taliskeenaba in aan dabagalno carruurta Soomaaliyeed oo ay isticmaalaan cadowga sida hadda sidii ku cadeyn ciidanka ay soo badbaadiyeen askar waalidiintooda laga qaatay gobolka Boqol oo ciidanka xoogga soo qabteen ay ku wareejiyeen hay'adaha amniga. waxaa ka go'an taliskeena iyo wasaaradaba inay ka shaqeeyaan in carruurta waalidiintooda laga qaatay in dib loogu soo celiyo hooygooda iyo meesha ay mudan tahay ay tahay inay iskuulada ku laabtaan. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Oduwaay Yuusuf Raage ayaa munaasabada ka yiri marxaladda maanta dalkeenu ku jiro iyo carruurta la gelinayo dagaalka la gelinayo waxaan dareemi karnaa nimankan burcadiimeedka ah oo ummadda Soomaaliyeed u diiday harsashadii iyo hargalkii intaba u diiday. nimanka ayaan isleeyahay waxay mudan yihiin runtii in laga qabto carruurta Soomaaliyeed. waxay muxuu ahay ii sheegay baabi'iyeen mustaqbalkoodii, waxay baabi'iyeen waxbarashadoodii iyo muxuu ahay ii sheegay badqabkoodii, waxay baabi'iyeen caafimaadkoodii. marka kuwaas ayaa u baahan runtii in muxuu ahay dabcan ayagu in laga wacyigeliyo ma mudna in laga qabtay mudan yihiin sidii looga qaban lahaa in laga fikiro kuwaasaa mudan. marka ciidanka ilaahay ayagana muxuu ahay ii sheegay carruurta Soomaaliyeed oo ay dhibaatada ku hayaan oo ay muxuu ahay ii sheegay afduubka u heestaan oo waalidiintii dhashay iyo muxuu ahay ii sheegay qoysaskoodii ay afduubka uga heestaan. kuwa badanna hore waa looga badbaadiyey, kuwa kalena waxaan isleeyahay waqtigoodu waa soo dhamaaday mana u suurtageli doonto insha Allah tacaala inay sii heestaan. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa ka sheekeeyay mowqifka dawladda ee ku aadan inaan la askarayn carruurta. xaqiiqdii dawladda Soomaaliya jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed waxay ka go'an ama ay committed ku tahay sidii loo ilaalin lahaa carruurta. carruurta waxay ka mid yihiin mustaqbalka dalka, waxay ka mid yihiin aayaha dalka. runtii dal wuxuu ku xisaabtamayaa jiilka soo koray, waa madaxda mustaqbalka. marka waxaa ka go'an dawladda sidii loo ilaalin lahaa, looguna dadaali lahaa sidii ay waxbarashadoodii iyo aqoontooda lagu kordhin lahaa. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida aad la socotaan wuxuu soo maray marxalada aad iyo aad u kala duwan, laakiin maanta wuxuu soo gaaray marxalad aad iyo aad u qiimo badan kadib markii runtii ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed dhammaantoodaba ay systemka la geliyey, taasoo macnaheeda ay tahay inaysan jirin wax carruur ay da'dooda ka yartay 18 jir. aanu aaminsannahay waqtigan cidda isticmaasha carruurta ama dhibaato ku gaarsiisa ummaddan Soomaaliyeed waa ururka xag jirka ee Al-Shabaab iyo Daacish oo dhammaantooda u adeegsada carruurtaas oo maskaxdooda aan soo korin si ay u isticmaalaan inay ku baabiyaan ummadda barnaamijyada oo waxba galabsan. runtii insha Allahu tacaala kuwaasna sida hadda taliyayga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka dhawaajiyey in badanna lagala dagaalamay inta kale waxaatayn insha Allahu tacaala aan ku guuleysan doono waqti dhowna ummadda Soomaaliyeed ay gaari doonto meel runtii aad iyo aad ay ugu faraxdo. fariinta wasaaradda gaashaandhigga ee 12 February maalinta ka hortagga askaraynta carruurta ayaa qayb ka ah heesan ay ku luuqeynayaan kooxda horseed ee ciidanka.
cabdishakuur shaasha SBS muqdisho. maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu casho sharaf u sameeyay isimadii ka yimid Puntland iyo Kilinka Shanaad. wariyahana Shaafici Shaacir ayaa warkan inoo faahfaahinaya. isimada maamulka Puntland iyo dowlad deegaanka Soomaalida ayaa baryahan ku sugnaa magaalada Muqdisho ee xarunta gobolka Banaadir. isimadan ayaa u joogay howlo shaqo oo la xiriira isu soo dhaweynta iyo nabadeynta ummadda Soomaaliyeed. dowladda hoose ee Xamar iyo maamulka gobolka Banaadir oo hormuud u yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa u sameeyay kulan sagootin ah isimada waxaana halkaasi ka jeediyay kelmad mahadcelin iyo tala soo jeedina Islaan Ciise Islaan Maxamed Islaan Muuse oo ku hadlayay afka isimada. waxaan kula dardaarmayaa isagoo qof waliba meesha uu ka leeyahay iyo abaarta uu leeyahay iyo miisaanka uu ku fadhiyo aynu u kacno dalkeenna iyo dadkeenna aynu ka baajino bahalka ama baadida bahalka ama bixidda uu cidlada iyo badaha kale ku dhumayo. waxaynu kaga gudbi karaa wadajir iyo tala midaysan Soomaalinimo oo la raadsho baan qabi karaa nabad oo dhalata baan qabi karaa. waxaan leeyahay marka dadka maanta halkan fadhiya caawa oo Soomaaliyeed qof walba waxa laga rabaa abaarta uu leeyahay iyo mudnaanta uu leeyahay. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay oo sheegay inuu mas'uuliyadda wixii ay dareemaan qaadayo gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. walaalayaal magaalada Muqdisho oo ah magaaladiinii caasimadii dalka Soomaaliya marar badan waan sheegay haddana waxaan rabaa inaan hortiina ka sheego magaalada Muqdisho waa magaalada dadka Soomaaliyeed dadka ku hadla afka Soomaaliga magaaladoodii dadka afka Soomaaliga ku hadla haddii ay dareemaan inta aniga aan magaalada Muqdisho duqeedii ahay wax ay dhibsadaan ama in ay dareemaan inayan ula mid ahayn kan meeshaan ku dhashay ama hadda degan mas'uuliyaddeeda ana qaadanay. bulshada ku nool magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir waxaa ka go'an Soomaalida Gaarisa Soomaalida Jigjiga Tanjabuuti iyo midda Hargeysaba inay iyo midda Muqdishoba si isku mid ah inay ula macaamilaan ula dhaqmaan. taas ayada ah waa naga go'an tahay waajib ahaana waan u qaadanay waana ku sii dhaqmi doonaa haddii aan leedno. Shaafici Cabdinaasir Maxamed Shaafici Shaacir SBS Muqdisho. xaflad si heersara loo soo agaasimay oo ay soo qabanqaabiyeen xisbiga Higsi ayagoo ku soo dhaweynayay xisbiyada kale ee ku soo biiray xisbigaasi. wariyahana dhaqan nuur gacma dheere ayaa inoo faahfaahinaya. munaasabadani waxaa loo sameeyay qaar ka mid ah xisbiyada dalka oo ku biirayay dalada xisbiga dalka ee Higsi. waxaana munaasabadan goobjoog ka ahaa madaxda xisbiyada ku boobay Higsi xildhibaano ka socday labada aqal baarlamaanka siyaasiyiin iyo General Ismaaciil Axmed Ismaaciil ururada haweenka dhalinyarada iyo marti maqaamkeedu sareeyo. haddaba waa maxay Higsi hadafkiisi muxuu yahay waa kuwan qaar ka mid ah madaxda xisbiyada oo sharaxaya amurahaasi. dad baa sidii loo garaacayay oo loo lahayaa tahay fiiri qofka leegada ku jira yaa tahay Soomaali buu taagnaa. dad baa sidii loo garaacayay markii halka ereyga Soomaaliga la dhaafin waayo ku dhintay. waa ku dhinteen Soomaali annaga dadku waxaan bari jirnay haddaan leeganahay yaa tahay Soomaali bas halka ma dhaafi kartid.
gumaystuna muxuu bareeyay yaa tahay Soomaali may Soomaali ma ogol yaa tahay oo rabaa reer hebel baan haystil hebel baan ka saacay qabay hebel baan ka saacay soo yiraahdo reer hebel baan wax idin ka badsanaya iyo reer hebel baan idin boobay kulli marka aad fiirisid dadka xorriyadda u soo wada dagaalamay labada qodob bay taageen dalka iyagu waa mid dadka iyaguna waa mid labada qodob bay taagnaayeen madax badan baa iga dambeynaysa waana hadalka hambeeyo aan reebo horta xafladdu waa inoo furan tahay mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawaada gacmo furan waxaan u maleynayaa xafladda waad ka wada dheregsan tihiin dalladda higsi ay ku midoobeen 9 xisbi siyaasadeed oo ka tirsan 76 xisbi ee ka jira dalka dalladda higsi waxay u taagan tahay 6 xaraf oo loo soo gaabiyey horumar israac iscafin gobonnimo sinaan ilaalinta sharciga hadaf siyaasadeedkeena wuxuu ku cadyahay 6 xaraf waa xisbiyo isu tegay oo isu aragti ka noqday halka dalka ugu mustaqbalka waxaan rabaa halkan inaan idinkaga sheego maanta aan ka markhaati kaco sloganka meesha ku qoran waxa halkaa ku qoran ad arkaysaan waa 6 xarfood oo siduu u sheegay guddoomiyihii iga horreeye u sheegay ay taladan ay ku midowday afkaarta siyaasadeed ee mustaqbalka ay hiigsanayso waxaan rabaa marka halkan marka hore inaan ugu mahadnaqo marti sharafta labada gole ee aqalka baarlamaanka iyo aqalka sare halkan maanta nala joogta oo runtii si karaamo leh noo soo sharaftay qaarkoodna ay yihiin mas-uuliyiin ku mataanaysan dalladda waxaan sidoo kale rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo guddoomiyaha dalladda tiir doctoresa Fawsiya Yuusuf Xaaji Aadan oo runtii kulankan inuu dhaco qaybta ugu libaaxsanayd ama ugu muhiimsanayd ka qaadatay sidoo kalena ustaad Cabdiraxmaan Dheere oo runtii iga horreeyay runtii wuxuu ahaa lafdhabartii agaasinka isku lahayd hawshan inay dhacdo dadda gacmooda hoos u jeeda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan mas-uuliyiinta halkan iskugu yimid gaar ahaan labada gole dowladda odayaasha traditional elderska waxaa kaloo igu weyn haweenka dhalinyarada fanaaniinta sharafta leh aqoon-yahanada aan la ilaali karin dhammaan waa salaamantihiin waxaan idinku salaamay salaan 114 qur'aanka cadadiisa gudoomiyaha midowga xisbiyada dalka ee higsi marwa Fawsiya Xaaji Aadan oo ka tirsan baarlamaanka dalka horeyna u soo noqotay ra'iisul wasaare ku-xigeen ee dalka ayaa ugu dambeyntii sharaxday ka bixisay ujeedka isku tagga xisbiyada higsi iyo halka ay higsanayaan wax badan baa laga hadlay higsi ku noqon maayo higsi iyo ujeedadeeda ku noqon maayo waxyaalihii badnaa ee laga soo hadlay laakiin waxaan jeclahay inaan qodobo kale taataabto oo halkaynu ka nimi iyo halkaynu ku soconnaa soomaaliya waxay soo martay qarniyo ay madax adduunka ka ahayd waxaynu soo marnay 1300 ilaa 700 maraynu super power ahayn oo ruushia maraykan toona jirin waxaynu soo marnay axmed guray dagaaladii caanka ahaa sayidkii 70-nadii iyo 80-nadii waxdaraynu adduunka ka soo dhignay laakiin waan turanturoonnay waana ka bixi karaa khibrad baynu u qaadanaynaa waxaanaynu maray 30 sano waxaynu haysanaa waddan qaniya oo wax walba leh ku celcelin mayno taa waa la wada ogyahay dhan walba ilaahay nagu manaystay dad firfircoon oo fikrad fiican leh had iyo jeer midho dhaliya oo wax curiya maxamuud dhaqane nuur gacmo dheere TV-ga caalamiga SBS TV
muqdisho. furitaanka shirweynaha sanadlaha ah ee garsoorka oo maanta muqdisho ka furmay. shir sanadeedka garsoorka dalka ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho kaasoo looga hadlayo arrimaha xaaladaha garsoorka iyo cadaaladda dalka halka uu marayo. sidoo kale sanadkii labaad ayaa shirkan lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay hay-adaha garsoorka dowladda federaalk Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. arrimaha shirkan looga hadlayo ayaa waxaa ka mid ah caqabadaha haysta garsoorka dalka iyo sidii loo tayeyn lahaa hay-adaha garsoorka dalka, iyadoo wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalk Soomaaliya ee ka warbixinayso xaaladda garsoorka dalka. intaa kadib waxaan marka koowaad hambalyo u jeedinayaa guddiga qabanqaabada oo iyagu isku xilqaamay qabanqaabada qorshaynta iyo qabashada shirkakan ay maanta halkan u wada joogno. sidoo kale waxaan bogaadinayaa cid kasta oo gacan ka geysatay inuu inoo qabsoomo maanta shirkii labaad ee shirsadeedkii labaad ee garsoorka. mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin, shir sanadeedka garsoorka waa shir sanadla ah oo qaanuuni ah oo sidii halkan laga sheegay ku qotoma qodobada 30aad iyo 30aad ee xeerka nidaamka garsoorka Soomaaliya. shir sanadeedka garsoorka waa madal lagu gorfeeyo waxyaabihii garsoorka u qabatoomay iyo caqabadihii ka hor yimid sanadkii tegay, lagu qorsheeyo laguna jaangooyo qorshayaasha sanadka cusub, ka gudubka caqabadaha taagan iyo horumarinta waxyaabaha hortaminta garsoorka u leh mustaqbalka dhow iyo ka dheerba. waa madal lagu xaqiijiyo isku xidhnaanta, wada shaqaynta, midaynta dabaqaadda xeerarka ee qaybaha kala duwan ee garsoorka dalka. shirkan oo ah kii labaad ee qabsooma muddo 30 sannadood ku dhow. waxaan aaminsanahay garsoorka marka ugu horeysa waxaan rabnaa ka hadalno qaab dhismeedka garsoorka. sida aad la socotaan burburkii kadib lama dhammaystirin qaab dhismeedka garsoorka. mar haddii hay-addii garsoorka oo la rabay baarlamaanka sharciga uu sameeyo ama xeerarka uu soo saaro dadkii fasiri lahaa ama hay-addii fasiri lahayd ay tahay, haddii hay-adihii dowladda ay isku qabsadaan xeerar ama shuruucdii baarlamaanka uu soo saaray fulinteeda dadka garsoori laha ay yihiin ama hay-adda garsoori lahayd ay tahay, haddii loo baahdo dastuurkaas in la fasiro hay-addii garsoor samayn lahayd oo fasiri lahayd hadday iyadu tahay. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa horey u ballan qaaday in hay-adaha garsoorka laga dhigi doono kuwa lagu kalsoonaan karo, waxaana dib u habeen lagu sameeyey hay-adaha garsoorka dalka. Muniir Muuse Bujeeti, Muniir Kaskey, SBS, Muqdisho. mid ka mid ah culimada ku nool magaalada Jowhar ayaa sheegay in ayuutada laga qariyo ninka guriga iska leh ay tahay xaraan iyada oo sii kordhaysa muddooyinkii dambe. warkan waxaa Jowhar inooga soo diray wariyaheena Nuur Maxamed Macalin. wax ururinta iyo wax wadaagidda ayaa hadba bulshadu waxa ay u isticmaalaan siyaabo kala duwan iyaga oo ku maareynaya noloshooda. ayuutadu waxa ay ka mid tahay hababkaas kala duwan ay aadanuhu u arkaan in intifaac iyo horumar u tahay ayna ku dabari karaan noloshooda. haddaba ayuutadu maxay ka qabtaa diinteena islaamka? waa kan Sheekh Cabdicasiis Sheekh Maxamed Barrow oo lagu garan og yahay qalin leh ragga ama haweenka isku darsadaan. maalan gabdhahani maalan waxa way gabdha dhaqaal ay u gaar leh ma ahayn, xaasas ay leeyihiin nimana qabo, nimankaas biilkoodii ayay ka soo qaadayeen. marka ninka biilkii cidii uu tala galay 10,000 ayay ka soo jareen ama 20 ay ka soo jareen. ninkeena ma oga oo raadi kama ahayn, idanna ma siinin, way ka soo jarayaan waxay geynayeen. marka muxuu ahaa ayuutida ku darsanayeen. taas marka xaaraan ay noqonaysaa. bataas khilaaf la'aan haddii ninka xoolihiisii idan ay u qabin khilaaf la'aan waxa waaye ayda waa xaraam taas. laakiin ayuutada daata ahaanteeda muuqaal ahaanteeda xalaal miya mas xaaraan hadaa la yiraahdo waa xalaal daata ahaanteeda muuqaal ahaanteeda xalaal waa, laakiin shilinka la bixinayo la fiiriyaa. marka waa gartan Soomaali marka shilinka la bixinayo haddii uu yahay
shilin macnaha ninka laga soo xasdi oo xoolihiisii laga soo qaaday asina macnaha war u haynin taas xaraam ay noqonaysaa waa tii habeenka macnaha ku socotay marka sidaas ayuutada mar xalaal ay u noqonaysaa mar xaraan ay u noqonaysaa marka marna naagaha bataatan xaraan ay ku tahaybo bigayr idni zawjiha ay wixii ay bixisay ninka idin laantiisa wixii ay bixisay bataatan ida xaraan ay ku noqonaysaa hadii xool u gaar ay yihiin xool ay u gaar ay leedahay ganacsi ay ku jirto oo nig waxba uu ku leen taas la baas dhibaato ma leh haweenka Soomaalida ayaa ah kuwa ugu badan ee isticmaala inkastoo ay ragga qudhoodaba ka marnayn haddana uma badna ayuutadu waa isku darsi lacageed ay ku midoobeen iskuna afgarteen kooxdad ah isbuuc ayaan ku qaadanaa anaga ayuutada macnaha waxaa la dhahaa qaab iskugu imaado loo aruursado 20 qof 10 qof qofba sii waayo dadba sii waayo marka anaka 10 ayaan 10 kaayna isbuuci milyan qaada qofkii milyan la siiya dinkiisa way ku danaystaa faa'iido noogu jirto faa'iidaas way anaka waxba khasaareen ma soo gaaraan faa'iido weyn ayaan ku qabnaa caqabado oo laga kulmo yar way jiraan dadka ku jira laga soo aruurinayo xagooda oo ka imaanayso caqabadaha waxaa ka mid ah isbuuci loogu tirigalay ay dib u dhacaysaa qaadowgeedii kaas ayaa ka mid ah aniga walaahi waxba ka shaqeeya ayuutadaas aan ku jiraan wax meel kale kulmi dib ah ma dhacda maya waa qaadanaa laakiin haday u aruurto markaa hela iyadoo uusan aadiiba marka uu badato waa aruurina hal mar iska dhiiba hadaa helo marka uu badnaa waxa uu gaaray 60 70 marka qoyska marka la dhaho 10 ruux hadaa tihiin oo min 10 kun iska aruuriyo 700 meelaas qofkii 100 kun oo keena isbuuci 5 maalin isbuuc ma han 5 maalin waa aad kaliya qaadanay 700 hadan qof kala loo aruurina asina maraa la siina ilaa ka dhamaato qof loo siina wax kala kulmin hal meel bis ku qasaari oo loo inkir oo saaudiga oo isuga dadka la siisay horteelaysi ana u dambeey aniga leeysiinin oo dadka la way aruurista la way dadkii keen lahaa macna waa qalbixin iyo dhamaan qasaarada salmar la kulmin Nuur Maxamed Macallim SBS TV Jowhar qaar ka mid ah shacabka Beledweyne ayaa cabasho ka muujinaya qiimaha baasaboorka oo aad moodo inay aad uga qaalisan tahay magaalada Muqdisho wariyaheena Maryan Ruun ayaa warkan mar kale Beledweyne inooga soo dirtay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne ayaa waxa ay ka cabanayaan qiimaha lagu qaato baasaboorka magaalada Beledweyne iyadoo ay jiraan dhalinyaro badan oo u baahan in ay sameystaan baasaboor iyadoo qiimaha lagu qaato baasaboorka magaalada Muqdisho aad uga yar yahay kan magaalada Beledweyne waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne oo u waramaya TV-ga SBS xaruntiisa magaalada Beledweyne bismillaah anoo magacayga ku bilaaba Cabdimaalik Usmaan Axmed kana mid ah dadka degan magaalada Beledweyne waxaan ka codsanaynaa maamul goboleedka Hirshabeelle inay sicir bararka ka jira ama sicir bararka nahay oo ah baasaboorka $180 inay naga raqiisiyaan maadaama ay caasimadii ka tahay $180 lagu jarnaa xilligan la taagan yahay cabashadaasna waxaan u diraynaa maamul goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Yaasiin Cali Axmed waxaan ka mid ah dadka baasaboorka u doontay xarunta baasaboorka lagu bixiyo Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Beledweyne waxaan cabasho ka nahay qiimaha baasaboorka oo Hirshabeelle ay ku bixiyaan $180 halka magaalada Muqdisho lagu bixiyo kaliya $180 maamulka Hirshabeelle ayaan cabasho ka nahay oo iyagoo lacagta nagu ziyaadiyay qaadashada baasaboorka ilaa iyo $72 marka wasaaradda iyadan ku shaqale arrimahan jinsiyadaha iyo xukuumadda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in arrinta maamulka Hirshabeelle ay ka hadlaan oo ah qiimaha baasaboorka oo nagu daray waa maasantiin dhalinyarada magaalada Beledweyne ayaa iyagoo ka dalbanaya in waaxda socdaalka Hirshabeelle ay wax ka bedelaan sameynta qaadashada baasaboorka maadaama dhalinyarada duruufo kala duwan ay xilligan ku haysato magaalada Beledweyne Maryam Maxamed Cali warbaahinta caalamiga SBS TV Beledweyne hay-adda caafimaadka ee adduunka oo magacii ka bedeshay cudurkii ka dilaacay dalka China hay-adda caafimaadka dunida WHO ayaa sheegtay in ay magacii ka bedeshay fayraskii ka dilaacay China ee ahaa coronavirus fayraskan oo loo yaqaanay coronavirus ayaa hay-addu sheegtay inay ka bedeshay hadda magacii coronavirus hadda kadibna loogu yeeri doono COVID-19
magaca bedelista caabuqan ayaa imaanaya xilli ay sii kordhayaan dadka u dhimanaya iyo kuwa u soo ridanaya cudurkani. Ilaa iyo haatan gudaha dalka China waxaa caabuqan ku geeriyooday in ka badan 1,000 ruux halka 10,000 oo kalena ay la ildaran yihiin. Isniintii gobolka Wuhan waxaa fayruskan uu dhimatay 103 ruux, tiradaas oo noqotay tii ugu badneed ee maalin qura ku geeriyoota. warkii aad kala socoteen SBS TV Muqdisho anigoo nimcaan idin la socodsiinayay waanaga inta ciduu warkayga seego waxay dib uga daalan karaan page-ka Facebook aan ku leenahay iyo waliba YouTube-keena. intaan warka xiga dib hawada ugu kulmi doono waxaan kaga tagayaa sida iyo amaana Allah.